barsaabka gobolka Gabriel Xamse Maxamed Cabdi Deeqsame ayaa ka jawaabay eedeymo been abuur ah oo ay soo jeediyeen xubno kamid ah xisbiga wadani kuwaas oo kamid ahaa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Gabriel ahna gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Gabriel Xasan Dhagjar kaasi oo ku tilmaamay mid aan warba ka haynin meeshii laga soo doortay Xamse Maxamed Cabdi Deeqsame waxa uu gudoomiyaha gobolka Gabriel ee xisbiga wadani ku sifeeyay مسؤول كفشل ما يقول متكلو في دنيا ضد كعباره ساميين يكون الجبل كجبلي وحنا وقلت المعمي مسؤول كفشل ما حل كيلو دورتين سلمر كاسينا قرابة كعناي كلايضا حافظ ما توي عليه وحنشعلها إن كهذلو هذا لو بين أبور أو حسبي يسم أو حبنا كم إذا حسبي قوتني أي دوانهن برشة الأحمرين أو لهين برسالة قبلي أي قبلي وحكي ترسل هالكيسة حاشا تاس وحنا عيماها وحنا قرن كرنا ماها وح مسؤولية دي إذا أي شخصية دي إذا كسر تجري كرنا ماها إن أنا له قبل كان برسالة كأها ما أها قبل محل معنى تاي ديار دي هالكيسة كدوشي هالكيسة رشيسي وحويان وحنا دي شيء يا أرن كاسو إنه يهي هذا البين أبورا بدي أن كتشيدي هداك يدور دميسترن وحأي كتشرت تيفيا وحنا كل رجال لي كان عصتها إيه قرب شو كرهير قبلي إن يسوم بالقشدان ما قال ما عاصمة الكبر كقبلي أو أن بيستنس أهم وحبوا كتشرن عاصمته ويسلويه أو لابون نوران كرو لو نشرت تكر عاصمته إنه حين هذا كسوحها بين أبور يوتيوب قال لي هالكرا وحنا كم مرخاتي كعية صحافة حرتها الرجبيلي intaas hadii aan taa ku dhaafo ninka warkan soo galiyay saxaafada waa laba nin oo leeyahay gudoomiyaha wadani ahna xildhibaan golaha deegaanka ninna uu yahay xogayaha dhalinyarada ee wadani xogayaha halka dhig ninka xildhibaanka ah ayaan isaga hadalkiisa ka hadlaya gobolkan waxaan imi iyada oo ay ka qiiqayaan abaarihii ugu baanaa ee ku dhuftay dadka reer Gabiley gudo iyo dibadba reer Soomaaliland cid waliba abaaraha gobolka ka dhacay way u soo gudubtay waxaanay ka geysteen roolkii ay ku lahaayeen waxa jira dad qurba jooga oo dhalinyaradii qurba joogtahay reer Gabiley oo hayn kari waayay abaarta gobolkooda haysa oo halka noogu yimi oo nagala shaqeynayay gurmadkii abaaraha ee aan u fidinaynay intii waxaas socdeen ee gurmadkaasi socday waxaan xasuustaa dhalinyarada ciyaaray iskuulka oo gudida abaaraha lacag ku guddoonsisay ay iska soo ururiyeen ay ka qayb qaadanayeen qaaraanka abaaraha ninka xildhibaanka ah waxa soo dham intay soconayeen wuxuu garaabada ku cunayay kabadhada Gabiley marxaati bayla sida daraadii ninka maanta Gabiley iyo gobol iyo wax ka hadlaya waxay ahayd maalintii dadkii subaanaayeen ee dadkii soo doortay abaartu haystay ee gurmadka u baahnaayeen inuu ka qayb qaato xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka oo aan safarka xildhibaan cibaadada soo qaadan kara waxay cagaheeda ku tagtay dadkii u hayaamay xeebta ee reer Gabiley ayay cagaheeda ku tagtay iyadoo marada dhexda ku xidhan oo ay halka raashin ugu geysay warninkii maalinta bowdada markaan ka jabay iyo boqonka taagiisa habeenkiiba way biran lahaa bahalkii cawlaayay raggii buurta dheer igala baxay beerka ka ogsooni bacila ma goortay dhamaaniga dulbo ay si wal bahar sameeyay bagay tirbeerka ka ogsooni warninkii maalinta reer Gabiley wuxuu qaban waayay ee waxa weeyaan ay dan qowiyada dhibaatadii haysatay inuu maanta gobolnimo iyo degmanimo iyo Gabiley iyo arrimaheeda ka hadlo nusqaan bay ku tahay adeer waxaan ku leenahay dhagjarow Gabiley anaga kaaga lex jecel badan dadkeeda anaga kaaga lex jecel badan gobolnimadeeda anaga oo madaxa u joogna wax qabadkeeda anaga u joogna degmada waxaanad warka haynin meeshii lagu doortay xildhibaanka ka ahay todobada bilood aan joogay gobolka ninka laba maalmood baan arkay halka agteedu maalin soo fariistay isagoo daanka ku takhsiisan qaab haashna uu ka wareeyay waa maalintii aragtiisii igu soo horeysay markuu iga baxay markuu igu waxaanay xildhibaan golaha deegaanka aad baan leeyahay waxaan ku dhaw markii abaaraha iyo dhibaatadu dhacayeen xagaad ku maqleen waxaan ku leenahay adeer Gabiley annaga kaaga lex jarbanay gidaaradaada iska garaabayso afxumada caayda dhaqan xumada campaign waxaan campaign noqonayn oo aan campaign xisbi noqonayn inaad campaign ka dhigato barsaab ay yireen sida nusqaan bay ku tahay gobolka Gabiley waan jeclay dadweynihiisana waan jeclay gudaha dibadba waan salaamay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.
sidoo kalena gudoomiyaha gobolka Gabiley waxa uu amaanay dhammaanba xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley marka laga reebo xildhibaan Dhagjar oo uu sheegay in haba yaraatee aanu gurmadkaasi fadhiga uga kicin isla markaasina aanu warba ka haynin wax kasta oo lagu hormarinayo gobolka Gabiley waxbana uu ka sheegi karin gobolnimada Gabiley iyo ka degmadaba maadaama aanu warba ka haynin arrimahaasi waxaan aad u amaanaya xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantood oo si mug iyo miisaan leh noogala qayb qaatay gurmadka abaaraha ee loo sameeyay dadkii abaaruhu aafeeyeen marka laga reebo ninka imika xildhibaanka waanan cadeynaya ninka maanta Gabiley iyo gobol iyo wax ka hadlaya waxay ahayd maalintii dadkii subaanaayeen ee dadkii soo doortay abaarta haystay ee gurmadka u baahnaayeen inuu ka qayb qaato xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka oo aan safarka xildhibaan cibaadada soo qaadan kara waxay cagaheeda ku tagtay dadkii u hayaamay xeebta ee reer Gabiley ayay cagaheeda ku tagtay iyadoo marada dhexda ku xidhan oo ay halka raashin ugu geysay xildhibaanada kalena rag iyo dumar umay kala hadhin war ninkii maalinta bowdada markaan ka jabay iyo boqonka taagiisa habeenkiiba way biran lahaa bahalkii cawlaayay raggii buurta dheer igala baxay beerka ka ogsooni bacilaama goortay dhammaaniga dulbo ay si wada bahar rasamanay bagay tirbeerka ka ogsooni war ninkii maalinta reer Gabiley wuxuu qaban waayay ee waxa weeyaan ay dalku wada dhibaatadii haysatay inuu maanta gobolnimo iyo degmanimo iyo Gabiley iyo arrimaheeda ka hadlo nusqaan bay ku tahay adeer waxaan ku leenahay Dhagjarow Gabiley anaga kaaga lex jecel badan dadkeeda anaga kaaga lex jecel badan gobolnimadeeda anaga oo madaxa u joogna wax qabadkeeda anaga u joogna degmada waxaanad warka haynin meeshii lagu doortay xildhibaanka ka ahay todobada bilood aan joogay gobolka ninka laba maalmood baan arkay halka agteedu maalin soo fariistay isagoo daanka ku takhsiisan qaab haashna uu ka warayo waa maalintii aragtiisa igu soo horeysay markuu iga baxay markuu igu waxaanay xildhibaan golaha deegaanka aad baan leeyahay waxaan ku dhaw markii abaaraha iyo dhibaatadu dhacayeen xagaad ku maqleen waxaan ku leenahay adeer Gabiley anaga kaaga lex jarbanay gidaaradaada iska garaabayso afxumada ayda dhaqan xumada campaign waxaan campaign noqonayn oo aan campaign xisbi noqonayn inaad campaign ka dhigato barasaabay sida nusqaan bay ku tahay gobolka Gabiley waan jeclay dadweynihiisa waan jeclay gudaha dibadba waan salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh Mukhtaar Nuux Ibraahim shabakada wararka gabiley tv.com magaalada Gabiley